dhegaysataan mawjadaha gagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta oo aad inaga maqlaysaan waa duhurnimo talaado ah 26 bisha Febraayo ee sanadka 2019. qodobada barnaamijkeena duhurnimo idinkugu haynana waxaa kamid ah baaritaan ku aadan dilkii Caasho oo ka socda Galkacyo iyo dibadbaxyo looga soo horjeeda dilkeeda oo dhacay. مدرير سوماليات ومدة بطلان وحن قعد سنة إن رياضتي أرنتاس باش حقيستي إن شرعي الهور كانوا إنتاس دين تسلام وحن قطع المسلمين عن قبيل يوضي أرنتاس عن سوق السيد وهذا هرب العشرين إن قبيلات ما برأرنتاس. xaaladda Hindiya iyo Pakistan oo meel adag maraysa kadib markii ay saaka diyaaradaha dagaalka ee Hindiya ay duqeyn ka geysteen dhul ay ka taliso Pakistan. deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxaa heshiis ku kala saxiixday laba beelood oo ay caloodi ka dhaxtaalay. sidoo kale wararkii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. soosaaraha barnaamijka waa Maxamed Cabdiraxmaan oo waxaan idinla socodsiin doontaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi. marka hore dhageystayaal waxaynu barnaamijka ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da. waa kan Cabdiraxmaan Cali Dhimbil. mahadsanid Kawthar. iyadoo ay xiisadii ka dhaxaloosan tahay labada dal waa Pakistan. India waxay sheegtay inay duqeymo xagga cirka ku qaaday bartilmaameed aag maleeshiyadeed oo ku yaala wadanka Pakistan. wasiirka arrimaha dibadda ee India ayaa sheegay in bartilmaameedyadu ay weerareen goobo tababar u ahaa Jaysh Mohammed oo ah koox maleeshiya ah kuwaas oo weerar ku dilay in ka badan 40 askari oo ku sugnaa dhulka Hindiya maamusha ee Kashmir. xukuumadda Delhi ayaa sheegtay in tiro badan oo maleeshiyada kamid ah lagu dilay duqeymo dhinaca cirka ay ku qaadeen. madaxa sare ee Roman Catholic Australia George Bill ayaa lagu helay dambiyada galmada carruurta. mudane Bell ayaa ah baadariga ugu sareeya Roman lagu helo dambi noocan ah. wuxuu sheegay inuu rafcaan ka qaadan doono go'aankaas. dhanka kalena Mark Coleridge oo ah hogaamiyaha shirka guud ee baadariyada Kristanka oo hadda lagu wado baaritaan ah inuu qabtay xog ku saabsan faraxumeyn dhalaan ayaa soo saaray hadalkoodan. The bishops agree that everyone should be equal under the law. badariyadu waxay ogol yihiin in dadka oo dhan ay sharciga u siman yihiin. waxaan xushmaynaynaa nidaamka sharciga ee Australia. nidaamka sharciga ah ee xukunka riday wuxuu iminka ka baarandegayaa racfaanka ay qaateen kooxda qareennada ee badariga u doodaya. rajadeennu waxay tahay mar walba iyadoo hanaankaas la marayo in cadaalad la sameeyo. At all times is that through this process justice will be served. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo isniintii gudbiyay iscaasilaadiisa ayaa sheegay in diblomaasi Tehran uu ku sumoobay dagaalkii sokeeye. Maxamed Saarif waxa uu ahaa bartilmaameedka naqayaasha muxaafidiinta. qoliyaha dib u habeynta ayidsan ayaa ku booriyay madaxweynaha in aanu aqbalin iscaasilaadiisa. hogaamiyaha waqooyiga Korea Kim Jong Un wuxuu ku sugan yahay Vietnam halkaas oo uu wada hadal kula yeelan doono madaxweyne Trump maalinta Arbacada iyo Khamiista ugu dambeyn xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dhiilo bini'aadanimo oo baan ay ka socdaan Yemen. waxaanu ka digayn hay'adaha samafalku ay sameynayaan horumar gaabisa. Antonio Guterres wuxuu ka hadlayay furitaanka shirda bixineed oo la rajaynayo in kor loogu qaado $4 bilyan oo loogu talagalay hawlaha gargaarka ee dalkaasi. xubno kamida wadamada Latin America iyo Canada ayaa sheegay in Venezuela ay baaritaan ku sameeyso maxkamadda dambiyada adduunka kolkay hor istaagtay gargaarkii loo waday dalkaas. waxayna intaas ku dareen in siyaasadaasi ahayd mid ka soo horjeeda inta ayna ugu warkii caalamka. wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdiraxmaan Cali Dhimbil ayaa dhageysanaysaan. dhageystayaal iminkana u diyaar garoowa qaybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilaabnay sida qodobada wararkeena baad ku maqlayseen. magaalada Galkacyo weli waxaa ka socda baaritaanka dadkii ku lugta lahaa dilkii iyo kufsigii aadka looga carooday ee loo geystay gabar 12 jir ah taasoo meydkeeda la soo dhigay meel aan ka fogeyn gurigooda. dhanka kalena laamaha amniga ee Puntland iyo xubno ka socda shaybaarka gaanada ayaa leh kulan ay ku gorfaynayaan wixii uga soo baxay baaritaanadii gooni-goonida ahaa ay wadeen iyadoo goor dhaweyd la aasay meydka gabadha. wararkaasi waxaa la socday oo magaalada Garowe nooga soo diray wariye Axmed Cawil. Galkacyo waxaa ka socota baaris xoog leh oo ku saabsan dilkii Caisha Ilyas oo 12 sano jir ahayd oo sida la sheegay u geeriyootay kufsi iyo jir dil
loo geystay waxaana laamaha amniga ay isku taxaluujinayaan sidii gacan loogu soo dhigi lahaa cid kasta oo dembigu soo galo iyadoona uu jiro dad dheeraad ah oo kiiskan ilaa xalay loo qabtay sida uu cadeeyay gudoomiyaha gobolka mudug oo goor dhaweed aan la xiriiray sidoo kale baaritaanada waxaa qayb ka ah kooxo ka socda shaybaarka hidasidaha ee dambiyada lagu baaro iyadoona soo bandhigistiisa natiijada ay ku xiran tahay hadba ay sidii ay garowa ay kooxaha qaabilsan arrintan ay usoo gaaraan maadaama uu qalab ku yaallo magaalada garowe caasimada puntland caaisha maanta ayaa lagu xabaalay magaalada gaalkacyo waxaa kale oo magaalooyinka waaweyn sida garowe iyo gaalkacyo ka dhacay banaanbaxyo arrintaasi lagaga soo horjeedo taasi oo ay dhigayeen ardada iskoolada wax ka barta magaalooyinkaasi waxaan aad uga xumahay anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ardayda reer gambool iyo gabdhaha ummadda soomaaliyeed magaceeda wixii dhibtaa geystay ee dhibtaa dhacday gabadhaa yar ee lagula kacay dhibaatadaas waxaan laamaha cadaaladda puntland madaxweynaha dowladda puntland laamaha cadaaladda puntland maxkamadaha iyo ummadda reer soomaaliyeed iyo ummadda puntlandba waxaan ka codsanayaa in dhalinyartii arrintaas foosha geysatay in sharciga la hor keeno islamarkaasna sharciga waxa uu ka qabo dhibtaas diinta islaamka waxa ay ka qabtay inuu fuliyo aan qabiil iyo oday iyo arrintaas aan la soo gelin sidii waagi horeba dhici jiray in qabyaalad lagu maamulo arrintaas dhacdadan ayaa ah mid guud ahaan Soomaaliya gilgishay waxaana jirta in qaybaha bulshadu ay ku baaqayaan in cadaaladda la hor keena dadka falkaasi geystay waa tahay kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga Axmed Cawil oo warbixintaasi noo soo diray dhanka kale dhageystayaal ayaa qodobkan arahdooda kaga soo dhiibtay dhanka Facebook waxaa kamid ah Maxamed Cawil Axmed oo ku sugan Boosaaso waxa uu leeyahay kufsiga iyo dilka lagula kaco haweenka Soomaaliyeed waxa lagu heli karaa iyadoo dadka falkan geysta loo mariyo ama la mariyo ayuu leeyahay maxkamadaha sharciga ah oo lagu xukumo waxay shariicadu qabto balse Soomaalidu waxay caado ka dhigatay in odayaal dhaqan ay xal gaaraan taas oo xuquuqdii gabdhaha lagu doodsiyo arrintan waxa uu leeyahay falka ka dhacay galkacyana waxay u baahan tahay cadaalad iyo sharci dhageysta kale la yiraahdo hani oo joogto garban uga xumahay falka uu xushnimada ah ee lagula kacay Aisha oo nagu reebtay murugo ma hartayna leedahay waxaasi cadaalad lagu heli karaa in gacanta lagu soo dhigo wixii ka dambeeyay falka foosha xun iyadoo wada ognahay in marar badan oo kufsi dhaco haddana aan la arag dad loo xukumo waa qaar kamid ah dhageystayaasha Facebook-ga araahdoodii kaga soo dhiibtay qodobkaasi imikana Muqdisho wararka ka imanaya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in duqeymo iyo weeraro kale oo loo maleynayo inay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ay ka dhaceen tuulooyin gobolkaasi ku yaala dadka deegaanka qaarkood ayaa BBC-da u xaqiijiyay duqeymahaas waxaana soo baxaya warar sheegaya inuu khasaare jiro wararkii ugu dambeeyay waxaa noo haya wariyaha iyaga ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan كوثر وركي ugu dambeeyay aan ka helayno deegaanka la yiraahdo Shabeelle oo qiyaastii 35 kiiloomitir koonfur uga beegan magaalada Beledweyne waxay sheegayaan in uu jiro dhimasho iyo dhaawac gaaray dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo halkaasi ku sugnaa sidoo kale dadka deegaanka waxay soo wariyeen inay jiraan gaadiid halkaasi ay ku burburiyeen diyaaradaha dagaalka ee xalay duqeynta ka geystay aagaasi duqeyntani waxay dhacday xalay saqdii dhexe ilaa 3 gantaal ay dadka deegaanku sheegeen in uu qabsaday deegaanka Shabeelle xalay waqti dambe iyagoo dadka deegaanku ay sheegeen in ay arkayeen iftiin ka horeeyay qaraxyada dabadeedna ay markii dambe maqleen qaraxyo waaweyn iyo iftiin hawada ka baxaya waxay sheegeen in diyaarado dagaal ay duqeyntaasi geysteen ilaa hadda macada diyaaradahaasi halka laga lahaa laakiin maalmihii ugu dambeeyay gobolka Hiiraan waxaa duqeyn xagga cirka ah ka waday diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka gaar ahaan kuwa aan duuliyaha lahayn habeen hore ayay ahayd markii duqeyn culus ay ka geysteen inta u dhaxaysa magaalooyinka Maxaas iyo Beledweyne ee isla gobolka Hiiraan taliska qaarada Afrika ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo Africom taliye u hadlay oo la yiraahdo Greg Olson wuxuu sheegay in weerarkii habeen hore lagu dilay 35 ka tirsan waxa uu yeeray argagixisada isagoo sheegay in la burburiyay isku day ay doonayeen koox ka tirsan Al-Shabaab in ay isu abaabulaan si ay weerar u qaadaan una dhibaateeyaan buu yiri taageeri waa bulshada Soomaaliyeed ciidanka qaranka iyo saaxiibadeena kale weerarkaas ama abaabulkaasna waan kala dhantaalnay weerarkan ugu dambeeyay ee xalay dhacay ayaa noqonaya weerarkii
sideedaad ee toddobaadkan gudihiis ka dhaca gobolada shabeellada hoose iyo hiiraan, iyadoo toddobaadkii hore weeraro culus ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose habeen hore iyo xalayna ay ka dhaceen duqeymo kale. Kawtar, marka waxaa muuqata in weerarada xagga cirka ee Maraykanku ay kordheen deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. aad baad umahadsan tahay. kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay duqeymo iyo weeraro kale oo loo malaynayo inay qaadeen diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Maraykanka oo ka geystay halka iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. ayaa uu kaasi ahaa. dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa BBC laanta afka Soomaaliga. ka dhageysa BBC Somali mobile-kaaga, raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. haatan Hindiya ayaa sheegtay in weeraro cirka ah ay ku qaaday xero ay leeyihiin kooxda Jaish al-Mohammed ee dalka Pakistan. New Delhi ayaa sheegtay in tani ay jawaab u tahay qaraxii horaantii bishan lagu dilay 40 ka mid ah ciidamada Hindiya. afhayeenka militariga ee Pakistan oo xaqiijiyay in diyaaradaha Hindiya ay dul marayeen dalkaasi ayaa sheegay inaysan geysan wax khasaare ah. wariyaha BBC-da Yogita Limaya ayaa warbixintan ka soo diray Mumbai. waa kan Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo soo jeeda. xiisada colaadeed ee u dhaxaysay Pakistan iyo India ayaa sheegtay inay burburisay saldhig tababar oo ay leedahay jabhadda Jaish Mohammed, ayna halkaa ku dishay tiro badan oo ah dagaalyahanada ururkaasi. xogayaha arrimaha dibadda ee Hindiya Vijay Gokhale ayaa sheegay in weerarka uu jawaab u ahaa qaraxii toddobaad ka hor lagu dilay 40 ka mid ah ciidamada dalkiisa oo ku sugnaa gobolka Kashmir qaybta Hindiya maamusho. Intelligence-led operation in the early hours of today. howlgal ay horkacayeen laamaha sirdoonka ayaa saacadihii hore ee saaka waxay Hindiya ku duqaysay xero tababar oo uu ururka Jaish Mohammed ku leeyahay Balakot. tiro badan oo ka tirsan ururkaasi argagixisada ah oo isugu jira tababarayaal, taliyayaal sarsare iyo dagaalyahano loo diyaariyay howlgallada gaarka ah ayaa lagu dilay howlgalkaasi. xeradan ku taala Balakot waxaa madax u ah Maulana Yusuf Azhar oo ku magac dheer Ustaad Ghawri, isla markaana seedi u ah Mas'ud Azhar, hogaamiyaha Jaish Brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. Pakistan ayaa dhankeeda sheegtay in diyaaradaha dagaalka India ay hawadeeda ku soo xadgudbeen, isla markaana ay rideen gantaallo aan wax khasaare ah geysan. waa markii ugu horeysay ee hadaladii kulula ee labada dhinac ay isu bedeleen weerar military. India ayaa sheegtay in jabhadda Jaish Mohammed aanay awood u lahayn in ay weerar fuliso iyadoo aan ku wargelin ama taageero ka haysan Pakistan. xukuumadda Islamabad ayaa beenisay eedeyntaasi, waxaana ay uga baaqday India in ay caqliga saliimka isticmaasho oo xaaladda aanay uga darin. Cabdiraxmaan Xaaji Cadow aad ayuu mahadsan yahay. waxa uu nala socodsiinayay warbixintii wariyaha BBC-da ee Yogita Limaya. iminkana Ethiopia, odayaal ka socda beelo uu dagaal ku dhex maray deegaano ka tirsan bariga Ethiopia ayaa maanta heshiis ka gaaray in nabad la dhex dhigo beelahaasi oo ku dagaalamayay deegaanada Tulli Guuleed iyo Jinacsanay. heshiiska uu soo abaabulay ugaas Maxamed Mustafa Ibrahim waxaa kale oo ku jira in qodobada muhiimka ah la dhameystiro maalmaha soo socda. wariyahana Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayaa door dhaweyd Faarax la arrimaha lagu heshiiyay. Faarax bil ka hor ayaa magaalada Dirname ugaas Mustafa uu isugu yeeray labada beelood waxgaradkooda, dad kale oo badan oo Soomaaliyeedna waa loo yeeray. marka halkaas ay in badan ku hadlayeen heshiiska maanta la galana heshiiskaas ayuu daba socdaa. marka waxaa ka dhacay tuulada Maraara oo u dhaxaysa degmada Jidacsanay iyo degmada Tulguleed. heshiis ballaaran in xabada lagu dejiyo labadan beelood ee walaalaha u dhaxaysa, isla markaana muddo sanad ka badan ah arrintani ay socotay. waxaana lagu ballamay maalinta sabtida soo socota in dib loo fadhiisto ilaa 2 jeer oo dambena la wada fadhiisto si dadkaas loo baktiyo. marka arrintaas waa arrin halkaas lagu taagtaray si dadban aaminsan yihiin. waayahay marka iminka sida hadalka ka muuqata xabad joojin ayay isla garteen labada dhinac. qodobada kale ee la doonayo in waqtiyada dambe laga heshiiyo ama la soo qaado oo xal loo helo maxaa ka labadan beelood ee Jidacsanaya Tulguleed kala degan waxyaabaha isku hayaan waa dhul ayay isku hayaan iyo tuulooyin bay isku hayaan. marka waxaa laga yaabaa tuulooyinkaas in la fargeliyo oo ama aftil laga qaado ama xukuumaduhu loo bandhigo. laakiin hadda waxyaabaha aan ka soo qaadin waxaa kamid ah dadkii hore ama u dhintay ama waxyaabihii la kala qaaday ama wax dhul ah midna lama soo hadal qaadin.
waxaad moodaysa si duuduuba uu nin lagu heshiiyey laakiin fadhiyada soo socda ayaa waxyaalaha qodobeysan ee lagu heshiin doono uma muuqato in wax badan lagu qararxi doono tusaale ahaan tuli guuleed dad badan ayaa degan oo dhinaca jinacsanaya una safeeta waxaa degan dad badan oo dhinaca tuli guuleed una safeeta marka waa laba qoys aadna isku dhexgalay tuulooyinkoodana isku dhexgaarsan yihiin waxba aan kala lahayn beeruhu ay isugu xigaan marka dad badan waxay aaminsan yihiin wax badan oo la kala soocay aysan jirin nasiib daro uun meesha ay ka adeegtay islamarkaana hadda aada iyo noqotay laakiin culays badan baa la saaray hadday noqoto dhinaca militariga dhinaca xukuumadaha labada deegaan labada degmo maamulkooda waxgaradkii soomaalida u dhashay ama deegaanka oromiya u dhashay marka culays badan baa la saaray culayskaasaad moodaa marka inuu natiijadan dhalay hadda maanta ay ku heshiiyeen waa tahay waa wariyaha iyaga jigjiga cabdinaasir sheekh maxamed xikam oo u waramayay faarax lamaane dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa b b c ka qaybgal barnaamijyada laanta af soomaaliga ee b b c oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay telefonka nambarkiisu yahay 477 kadibo b b c Soomaali waa hagaag iminkana haddii aan eegno wararka ciyaaraha kooxda Chelsea ayaa ugu dambeyn xaday goolhayaha koowaad ee kooxda Kepa Arrizabalaga kaas oo ay ku ganaaxday inuu mushaarkiisa qaadan doonin toddobaad kadib markii uu diiday inuu bedel ku baxo kulankii Man City ee finalka Carabao Cup goolhayahan Isbaanishka ah ayaa diiday inuu bedelo goolhayaha kale ee kooxda Willy Caballero oo garoonka Wembley kooxda Chelsea ayaa guuldaro kala kulantay City finalkii Carabao kadib markii ay rigoorayaal ciyaaraha caawa dhici doona markayna eegnana ee Premier League waxaa balansan Leicester iyo Brighton oo dheeri doona saacadu markay tahay 10 habeenimo iyo qadar 45 daqiiqo waxaa kale oo ciyaari doona Newcastle iyo Burnley 11 oo gow ah ee habeenimo ciyaaraha kale ee caawa la dheelayo waxaa kamid ah Coppa Italia Lazio iyo AC Milan ayaa balansan iyaguna saacadu markay tahay 11 habeenimo oo gow ah garoonkana waa Lazio waa tahay waa qaar kamid ah wararka ciyaaraha caawa dhacaya iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaarahaba dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan baafinta maanta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Samiira Cabdullaahi Jaamac iyo Caasha Saciid Xasan mahadsanid Samiira baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Hani Abshir Umar oo joogta Wisil waxay baafinaysaa Muhidiin Abshir waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sanca Yemen 2002 haddaba haddii uu maqlayo Muhidiin ama way jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Hani Abshir ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Wisil ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 252 maxamuud cabdi xirsi oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Asli cabdi xirsi waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2015 haddaba haddii ay maqlayso Asli cabdi xirsi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo maxamuud cabdi xirsi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Wisil ama telefoonka numbarkiisu yahay 255 Bashiir Nuur Cabdi oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Iftiin Nuur Cabdi waxa ugu wardambeysay oo ku sugan Talyaaniga 2012 haddaba haddii ayna maqlayso Iftiin Nuur Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Baashi Nuur Cabdi ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Wisil ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 256 Aways Cali Xirsi oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Zakariya Cali Xirsi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2009 haddaba haddii uu maqlayo Zakariya Cali Xirsi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aways Cali Xirsi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Wisil ama telefoonka numbarkiisu yahay 255 Salaad Xasan Xirsi oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Hadiya Xasan Xirsi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Faransiiska haddaba haddii ayna maqlayso Hadiya ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Salaad Xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Wisil
nafiso cabdi xasan oo joogta wasiil waxay baafinaysaa luul cabdi xasan waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalka koonfurta suudaan sanadii 2016 haddaba haddii ayna maqlayso luul cabdi xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nafiso cabdi xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2529 najmo xuseen saciid oo joogta wasiil waxay baafinaysaa mahad xuseen saciid waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2000 haddaba haddii uuna maqlayo mahad xuseen saciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo najmo xuseen iyadoo wixii loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil faarax axmed oo joogta wasiil waxay baafinaysaa maxamuud faarax axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka suudaan sanadii 2001 haddaba haddii uuna maqlayo maxamuud faarax axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo farxiyo faarax axmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2256 maxamed nuur siyaad oo jooga wasiil waxa uu baafinayaa sucdi nuur siyaad waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2010 haddaba haddii ayna maqlayso sucdi nuur ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil raxmo cabdi cali oo joogta wasiil waxay baafinaysaa abshiro cabdi cali waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2004 haddaba haddii ay maqlayso abshiro cabdi cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo raxmo cabdi cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil amaba telefoonka nambarkiisu yahay 25977662 hanad abshir cali oo jooga wasiil waxa uu baafinayaa qadar abshir cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Masar 2000 haddaba haddii uuna maqlayo qadar abshir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo hanad abshir cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil ama telefoonka nambarkiisu yahay 25565455 Zainab Nuur Cabdi oo joogta wasiil waxay baafinaysaa Cabdi Nuur Cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2002 haddaba haddii uuna maqlayo Cabdi Nuur Cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Zainab Nuur Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil amaba telefoonka nambarkiisu yahay 25265635 xadiye axmed salaad oo joogta wasiil waxay baafinaysaa mudan axmed salaad waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2007 haddaba haddii ayna maqlayso mudan axmed salaad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xadiye axmed salaad iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay ama telefoonka lambarkiisu yahay 25297668 Cabdullaahi Axmed Xuseen oo jooga wasiil waxa uu baafinayaa Daahir Axmed Xuseen waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Tanzania sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo Daahir Axmed Xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdullaahi Axmed Xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil amaba telefoonka nambarkiisu yahay 25565495 najmo maxamed cabdi oo joogta wasiil waxay baafinaysaa mahad maxamed cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2014 haddaba haddii uuna maqlayo mahad maxamed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo najmo maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil ama telefoonka lambarkiisu yahay 25265479 farxiyo xirsi bare oo joogta wasiil waxay baafinaysaa abshir xirsi bare waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkan Kenya sanadii 2004 haddaba haddii uuna maqlayo abshir xirsi bare amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo farxiyo xirsi bare iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526486563 Yurub diiriye siyaad oo joogto wasiil waxay baafinaysaa daahir diiriye siyaad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Faransiiska 1995 haddaba haddii uuna maqlayo daahir diiriye siyaad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Yurub diiriye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil
سعاد محمد حسن oo joogta wasiil waxay baafinaysaa cabdi xaafid maxamed xasan waxa uu dambeysay isagoo ku sugan dalka Sweden sanadii 2015 hadaba hadii uu maqlayo cabdi xaafid maxamed xasan ama way jirtay cid garanaysa falan warkiisa la gaarsiiyo Sucaad maxamed xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil ama telefoonka numberkiisu yahay 2556 hal eber 2 hal 4 quman axmed nuur oo joogta wasiil waxay baafinaysaa xamdi axmed nuur waxa uu dambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2016 hadaba hadii ay maqlayso xamdi axmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo quman axmed iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wasiil ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2529 eber 77 74 علي جاس جوليد أو جوجا دغحلي وحاو بافينيا بشير جاس جوليد وحاو ردن بيسي ساقو كسوغن دالك يمن سند لبدا كوني أفتي هذا بعد يونو مقلايو بشير جاس جوليد أما بيجرتي عد قراني سفر لوركي سهلا جارسيو علي جاس جوليد إيادو وحي ورا الله يسي مرين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل يدهاي وسل أما بتليفون نمبركيسي هاي لبشن لبلي حالشن هال أفر هال لبو هديو حسن عبدالله oo joogta wasiil waxay baafinaysaa Asiya Xasan Cawaale waxa uu dambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2010 hadaba hadii ay maqlayso Asiya Xasan Cawaale ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Hadiya Xasan iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil ama telefoonka lambarkiisu yahay 2528 hal عبد محمد أحمد أو جوجا وسيل وحاو علي ياسين وحاور دنبسي يدو كسوغن دالك إثيوبيا سنة لابد كون أفريتوانكي هذا بعد أنا مخليسو شكري علي ياسين أنيسا فالمور كذا هلا جارسيو عبد محمد أحمد يدو وحي ورا لوسيس كبافين تبش عسى كل هاي وبتليفون كنمبركيسي هاي لابشن لابلي حالشن لابو سديد ayaan nuur xaashi oo joogta wasiil waxay baafinaysaa canab nuur xaashi waxa uu dambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2017 hadaba hadii ay maqlayso canab ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo ayaan nuur iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2556 4443 عبد السمد علي حسين وجوجا وسيل وحاو بافينيا عبد الكريم أحمد حسين وحاول دنبيسي سوق كسوغن دالكن كينيا سنة 2019 هذا وادي ونمقليو عبد الكريم أحمد حسين أما بيجر تعيد قراني سفر لوركي سهل جارسيو عبد السمد علي حسين iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil Zahra Ahmed Ali oo joogta wasiil waxay baafinaysaa Ubax Ahmed Ali waxa uu dambeysay iyadoo ku sugan Suudaan 2011 hadaba hadii ay maqlayso Ubax Ahmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Zahra Ahmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wasiil حسين كاهي النور وجوجا وسيل وحاو بافينيا أحمد كاهي النور وحاور دنبيسي ساقو كسوغن دالك يمن سنة 2012 هذا بعد يونو مقليو أحمد كاهي النور أما بيجر تعيد قرانيسا فالموركي سهل جارسيو حسين كاهي النور إيضو وحورا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبشع عس إيه كل يدهاي وسيل حسن حرسي أحمد وجوجا وسيل وحاو بافينيا شكري حرسي أحمد وحاور دنبيسي أيضو كسوغن سودان 2012 هذا hadii ay maqlayso shukri xirsi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo xasan xirsi iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay telefoonka lambarkiisu uu yahay 2527 al ruuxani ali xuseen oo jooga finaya جمال صلاة محمد وحاور دنبيسي ساقو كسوغن دالك السودان سنة 2019 هذا بعد ونو مقليو جمال صلاة محمد أما بيجر تعيد قراني سفر لوركي سهل جارسيو الروحاني علي حسين إيادو وحوارا لو سيمرين كرو حفيز كبافين تبشع عس يقول لي هاي وصل أما بتليفون كنبركيسي هاي الله بشن لبلي حال سقال أفر تضبو سدح تضبو سقال فاطمة علي أحمد وجوجتا ويسل waxay baafinaysaa Zainab Ali Ahmed waxa uu dambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2017 hadaba hadii ay maqlayso Zainab Ali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Faaduma Ali iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wasiil ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2526 4444 baafintina maanta waa naga intaa عايشة يا سميرة يا بافنتي ويكون متسيهين برنامج كدور نمو وصصاري محمد عبد الرحمن هل كنا يدين كلا سعود سيني سي أنا كوثر محمد عبد الله هنا وين أنت
tan iyo kulankeena xiga 5 galabnimo dhageystayaal waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo